warka waxa rabaa inaan faahfaahin ku sameeyo in badan ayaa maqasheen suuqan la iskama soo galo waa la bartaa intaada gelin waxba soo bartaa oo la akhristaa waa la fahmaa dad badan oo indhahaya suuqan waxa kaloo kugu sheekaya suuqan faa'iidooyin badan buu leeyahay lacag baa laga dhaliyaa marka adoo qof ku cusub ah oo cryptocurrency dhegta ka soo maqlay iyo bitcoin qoon aqoonin meel laga bilaabo meeshan haddaad soo dhaxgashid coin market cap waado bad soo dhaxgalay oo aad ay ugu wareeraysaa meel ka bilowdina oo yarta inaad heshid hadaad tiraahdo okay labada coin ugu korayaan gadanaya maxaa ku gadanaysaa sababtay ku gadanaysaa hadaad tiraahdo ma 10 xabo ugu sareeya mid walba min $100 gelinaya asagana okay 10 ugu sareeya maxay yihiin ma fahansan tahay hadaad tiraahdo ma graafkan fiirinaya hada graafkan 24 saac ugu jeeyo kulli waa wada red saac u jeedin in yar ayaa green marka hadaad tiraahdo kuwa greenka kaliya gadanaya oo si kor ugu kacaan marka hadaad dhigeysid dadka ku dhahaya bitcoin hagadanina kuwa kala gata kuwa kala lacag laga sameeyaa degdega hadaad weydiisid coinkan kale maxay qabtaan wayarta qof ku sharxi kara haday ku sharxaan waxay ku sharxayaan waxa fahmi kartid maaha waa qofku yiri waxaan soo saar coinkan wuxuu qabanayaa geel uu qaabilsan yahay geel iyo coin maxaa ka qosaya marka maxaa ma geela markii meel lagu xareey caanihiisa la gato baa waxa lagu gadan doonaa coinka Dogecoin oo kaleeto ama Ethereum ama wax la mid oo kale ku sheegaya wax soo kaleeto marka wax qofkii aqli leh oo wax yar fahansan isla markii uu fahmaya waxaan inay dadka soo saareen ay u soo saareen inay lacag ka sameeyaan aysan faa'iido kala lahayn ama problem kale ama isticmaal kale aysan lahayn inta badan bay u badan yihiin wax meesha ku jiro dhan dadku waxay maqleen bitcoin ba waxa la soo saaray 2009 zero ahay 2009 ka bilaabatay maanta intaas ay maraysaa markaas qof walba ama kamariyaal ama ashxaas wax soo saareen coin la dhaho waxaan meesha ku taxana dhanbay soo saareen siday ayaguna ama qayb uga helaan lacagtaas ama ay u copy gareeyaan bitcoin ba 2009 zero ka soo kacday maanta intaanay gaartay si arintaas oo kale u sameeyaan iyo dadkan shacab weynaha ah oo loogu sheekeeyay bahashan baa lacag degdeg bitcoin baa lacagta inta gaartay kuwan kalena sidoo kale marayaan dariiqyo kale marayaan lasma weydiinayo bitcoin problem bay xalinaysay waxba jiray bitcoin 2009 kaliya ma bilaaban bitcoin was technology soo socotay content-kii sano ama content sano ka badan for technology soo socotay weeye cyberbank nimalaya jiray 60kii baa laga soo bilaabay cryptographic wax la yiraahdo lagu soo xijiyay ninka Satoshi soo saaray bitcoin 2009kii wuxuu soo xaliyay waxa la dhaho double spending problem hadad markaan dib ka soo diyaarin doonaa bitcoin ma ahayn wax 2009 kaliya bilaabatay waa ideeyooyin ama technology la soo geeyay aqoon la soo geeyay ilaa 60kii ka hor la soo waday bay ahayd oo lagu guuleystay 2009kii ninkan ku guuleystay qaabka uu xalinteed ugu guuleystay way ahayd marka laakiin waxaan kale oo dhan kulli waxay rabaan inay isku dayaan inay bitcoin koobiyaan markay ku bitcoin koobiyaan dadku ay lacag degdeg ka sameeyaan kuwa wax yar oo faa'iido la leeyahay kala qabta waa jiraan hadda sida US stable coins ka sida USDT-ga iyo USDC-ga kaleeto iyo ku stable coin-ka oo dadka wadamada saddexaad jooga oo raba inay dollar haystaan hadda wadankeena dollar ayaa laga isticmaalaa Soomaaliya hadii as digital ahaan dollarka laba loo haysto kale USDT oo kale tuu anfacaysa si inflationka lacagaha localka hadda lacagta Kenya oo kale Ethiopia iyo wadamada kale Africa iyo wadamada Latin America oo lacagtooda mar kor u kacdo mar hoos u kacdo haduusan qofku rabin inay lacagta localka haystaan ila lacag dollar ma haysan kartaa wadamada ka soo sheekay lacag dollar waa in legal inay haystid ama wax ku gadatid marka laakiin qofku wuxuu gadan karaa USDT dawladna ma ogaanayso marka taasoo kale anfac u leedahay sida stable coin ku anfac lacag kale leeyihiin meme coinski AI coinski iyo supply chain coin waxaanu kale lagu leeyahay ba ku xirina waa qof adoo kala ah oo raba inuu bitcoin oo kale koobiyeeyo si uga faa'iido asaga dantiisa iyo kamaniyaal iyo qololo hedge fund loo dhaho ayaguna raba in degdeg lacagta uga sameeyaan yaan suuqan lagu dhex wareerin yaan dad badan inta kaga sheekeynin coinan ba kala jira wax laga gato hadaa wax iibsanaysaan meesha waxa ugu fiican oo ugu performance fiican oo dhinac walba ugu fiican waa bitcoin wax kale oo soo raacana ma jiraan sababta iniinda waxaan tusayaa bitcoin kaliya meesha ugu muhiimsan ama hadaad waxa gasanaysaan bitcoin gashta sababta iniinda ayaan tusayaa hadda bitcoin ku dhufto oo hadda compare dhaho
oo aan Ethereum iyo ayada compare garayo. Meeshaan listi baa ku qoran Ethereum iyo Bitcoin. Sanad ayaan ku dhufanayaa. Sanadkii ugu dambeeyay performance-gooda. Ethereum waa ujeedaan 82% ayay kacday. Bitcoin 134%. Kebaa fiican. Bitcoin baa fiican oo performance fiican ilaa hadda right now. Mustaqbalku wixii dhici doona ilaah baa. Hadda mid kale uu compare garayo. Binance hadda uu compare garayo iyo Bitcoin ujeedaan waxa fiican oo performance fiican percentage-ka kacday. Bitcoin ayaa fiican 137 kan kalena 89. Hadda fiirisid Solana example oo dadka badan hadal hayaan. Solana 625% ayay kacday halka Bitcoin 130 ay kacday. Marka waxa lagu leeyahay fiilo Solana intay kacday way ka performance fiican tahay bay ku leeyihiin dadku. Laakiin waxaysan tixgelinayn baa jirta oo ah Solana intay dhacday ma la socoteen 2020. Hadda Solana ku dhufto halkan ku dhufto oo all time high ka doorto oo ujeedaan Solana waxay ka soo noqotay 240 2000 iyo hadda waa kan 240 ku dhawaad ayay ka soo 2021 gaartay. Markii ugu hooseysayna $9 meelahaas ayay hoos ugu soo dhacday. Waxaan idin tusayaa graafka 220 bay hal mar ka soo duushay oo waxay dhulka ugu dhacday $9 ayay gaartay. Halka Bitcoin intay 69 ka soo noqotay ay gaartay $16,000. Marka labadooda intay dhaceen hadda isku fiirisid wax badan Bitcoin baa fiican. Bitcoin 4x ayay dhacday halka Solana ay ka dhacday 24x 24 jibaar ayay minus gashay. Halka Bitcoin 4 jeer ay minus gashay. Marka dadka compare gareynaya dhahaya Solana way ka performance fiican tahay dhinaca kor u socoshada yes waa run 600 bay kacday hadda laakiin markay dhacdana suuqu dhacana way ka xun tahay waxay 10 jeer oo bay ka sii xun tahay dhicitaankooda oo Ethereum ayaa waxaan ka wadaa Bitcoin ayaa more safe ah. Marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi